بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين آد بان إذين سلامي بلشدة الصوماليات شان تقاردود بيش الدنيا كجوكتان وحانو قلينا مقالة بلنبلة قبل كالقدود وآنو مالمهان سعودال كمريني مانتا نلكوا برواقو بيات شيفة xooluhu waa dhereg dadku waa ladan yihiin waa nabadgelyo intaasi waa bishaarada guud oo xagga nolosha iyo duruufta deegaanka ah haddii laga yimaado fariin gaaban baan doonaynaa halkan inaanu bulshada Soomaaliyeed uga dirno fariintaas waxaanu u bixinaynaa qayla dhaanta dudumada waa fariin ahmiyadda ay leedahay awgeed aan dooranay inaan dudumo u fuulno si Soomaali meelay dunida ka joogtaba ay u gaarto oo la isula dareemo ahmiyadda mawduucan uu leeyahay ama fariintani ay ka hadlayso fariintaasi waxay leedahay shacabka Soomaaliyeed taariikhdooda hore oo aan haynay inay isdilaan iyo inay isnacaan iyo inay iscolaadiyaan iyo inay cuqdad isu hayaan iyo inay isqabyaaladeeyaan say u sameynayeen waxaa lagu tirin karaa waxyaabo dhaqankooda galay marxalado ay ziyaado iyo marxalado ay nusqaanto iyo marmar ay yara joogsato intaba way lahayd laakiin 40 sano oo ugu dambeeyay shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku jiray isdil iyo qabyaalad mar magac reer wadata mar magac jabhad wadata mar loolan siyaasadeed wadata mar laanan wadata mar magac diineed wadata haddii la isu soo ururiyana waxa isugu imaanaysaa aynu isdillo oo baaba'ano oo aynu dhammaano baa macnuhu yahay xooluhu waa baaba'ayaan dadku waa la'anayaan qaar waa qaxayaan moralka jabaya diin ahaan baa loo baaba'aya sumcad ahaan baa loo baaba'aya siyaasad ahaan baa loo baaba'aya nabadgelyo ahaan baa loo baaba'aya dhinac walba bulsho ahaan dhinac walba nolosheena wax saameynaya bay ahayd intaa way qaylinayeen Soomaali taariikhda aan sheegnay iyo wixii ka horeeyayba in laga guuro cudurkan xun ee dadkeena dilooday ee qabyaaladda la yiraahdo oo awoowayaal u dhinteen oo aabayaal u dhinteen oo inta hadda nool ay la ildaran tahay oo fayraskiisu uu ubad ka gaaray oo amoodid inaynu ku talagalayno ubadkeenana inaan ku beerno si ay iyaguna u leedaan dhaqanka xun oo culimo ka hadashay oo ay suugaanyahan ka hadleen oo aqoonyahan ka hadlay oo siyaasiyiin ka hadleen oo hoggaan dhaqan ka hadleen oo dumar ka hadleen oo dhalinyaro ka hadashay oo qof walba oo danqanaya oo damiir leh oo diin leh oo dadkiisa u jiirnaxaya uu la qayliyay oo la ooyay oo la balanbalay oo la isu habar wacday ilaa iyo hadda wali xal kama dambaysa waa la'anahay wax badan baa isbedelay moralka waxba soo noqday xusuuqii qabyaaladda ku dhisna waa soo yaraaday siyaasadda oo hadba lagu istaaro iyo reero hadba isku dhardhaara oo kuwa balaahi ay bala ka dhex kiciyaan iyo ninkii dan leh iyo cadow marmarkood wax isugu dhiiba wax badan baa inagu haray wali waa inagu aasan yahay laakiin wax badan ayaan ka soo yara biskoonaynaa marka fariinta maanta halka aan la fuulay waxa weeye inaanu baaq guud jeedino oo Soomaali u jeedino annaga oo dudumada dusheeda fuushan oo qorraxda ay kor naga hayso oo dhulkii nagu hareeraysan yahay iyo dhirtii inaanu oo dalkii Soomaaliyeed dhexdiisa aanu fariinta ka dirayno waxaan leenahay Soomaaliyey intaasoo dhibaato ah oo ina soo gaartay dhibaato inoo ku filan hadday jiraan rag wali u ciil qaba dhimasho dil dhaawac qax burbur hantaa wilif qaxooti dad wali u ciil qaba hadday jiraan waxaan ka codsanaynaa intii hore baa inagu filan oo inaga badan ninkii u ciil qaba waa looga sheekaynayaa ilaa uu ka dhargo khayr darro dhiig aragtidii xasuuq aragtidii qax aragtidii ihaano dadkeenni oo la qafaalanayo iyaga oo la kufsanayo iyaga oo la dhacayo iyagoo la dilayo oo aan shilinina oo san agtiisa ka joogin intaasi qof walba ku filan qaar wali ciil qaba hadday jiraan intii hore ha ku filaato intooda ha ku kaaftoomeen aynu soo xirno albaabka qabyaaladda colaadda isdilka aynu baalka laabno aynu bilowno bog cusub oo ka bilaabanaya walaalnimo iyo kalgacayl iyo midnimo iyo isku kalsooni
iyo iskaashi wanaag iyo khayrka la isu kaashado oo aynu bilowno baalal cusub oo ka maran qabyaalad gobolaysi kooxaysi colaad cuqdad isku dir abaabul sheeko xariirta qabaa'ilka oo beenta ah oo la isu akhriyo dadka lagu kiciyo iska horkeen abaabul ka maran nolol aan bilowno aynu u hanqal taagno inaynu qabyaaladda isaga daweyno sidii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu dadkii carbeed ee gaalada ahaa oo jaahiliyada ahaa oo qabyaaladdu dhaqanka u ahayd uu uga daweeyey daawadii uu nebigu dadkaas ku daweeyey calayhi salaatu wasalaam aan isku daweyno daawadii way taallaa qur'aankay ahayd xadiiskay ahayd habkii uu nebigu ugu daaweeyeyna waa inoo yaallaayo ma lubin oo siirada nebiga ku qorantaha calayhi salaatu wasalaam aynu dawadaa isku daweyno say ugu biskoodeen baynu ugu biskoonaynaa sababta keenaysa inaanu ku biskoon weynana wax kale ma aha daawadii waa haysanaa waa jecelnahay waa dhunkanaynaa waa rumaysannahay laakiin ma cunayno oo ma isticmaalayno waxaan leenahay kitaabka iyo sunnada aan ku dhaqanno oo ku walaalowno oo dulmiga iska dayno oo qabyaaladda iska dayno oo gacmaha isqabsanno oo nafta isu hurno oo wax istarno oo wax walba walaalnimadeenna xoojinaya aan qaadanno wax walba walaalnimadeenna wax u dhimayana aan ka harro soomaaliyey baaqa ma naga yeesheen qayradhaanta ma naga aqbasheen ilaahu waa gaarsiinay ilaahu naga aqbal ilaahu noo hirgeli asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu